Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa 15kii Agoosto ee sanadkan cod aqlabiyad ah ugu codeeyay in loo kordhiyo wakhtiga ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya oo tiradoodu dhan tahay 12,620 askari oo ka tirsan howlgalka ku-meel gaarka ah ee Soomaaliya ATMIS. Ciidamada howlgalka Midowga Afrika ayaa Soomaaliya ku sugnaa 17kii sannadood ee la soo dhaafay, ciidamadan oo xoojinayay taageerada dagaalka Soomaaliya kula jirta kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Inkastoo dhowaanahan ay dowladdu guulo ka gaartay, haddana dagaalada ayaa weli ka socda Soomaaliya. Waa maxay sababta Al-Shabaab ay u noqotay tiir adag oo aan la loodin karayn? 18 sannadood ayaa laga joogaa markii kooxdani sheegatay in loogu yeedho Xarakatul Shabaab ama Al-Shabaab, isla markaana ka dhalatay burburkii qarannimadii Soomaaliya. Sanadkii 2006 shabakad xag jir ah ayaa ka talinaysay caasimadda Muqdisho iyadoo u maraysa maxkamadaha shareecada. Wixii markaas ka dambeeyay waxaa soo gaaray guuldarrooyin iyo khasaare dhulkii ay ka talinayeen. Haddana kooxda Al-Shabaab ayaa sidii hore weli u sii xoog badan. Sanadkii 2012 waxay ku biirtay shabakadda argagixisada caalamiga ah ee Al-Qaacida. Awoodda Al-Shabaab ayaa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa 7,000 ilaa 12,000 oo askari, taasoo ka dhigaysa tiro ahaan ururka ugu xoogga badan ee hoos taga dalladda Al-Qaacida. Khaladaadka jihaadka Afrika waxa uu iftiiminayaa qodobada u suurtageliyey mujaahidiinta Afrika inay sii noolaadaan isla markaana horumaraan in ku dhow 10 sano. Qodobadan qaarkood ayaa khuseeya kiiska Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa hodan ku noqotay saamaynteeda waxaana ugu wacan 6 arrimood oo waaweyn. Reer galbeedka iyo saaxiibadooda Afrikaanku waxay diiradda saareen habka, qalbiga iyo maskaxda ee looga hortegayo kacdoonka Soomaaliya. Dhisidda hay'adaha dimuqraadiga ah iyo dimuqraadiyadda waa qayb ka mid ah istiraatiijiyaddan. Laakiin kuwani waa hay'ado aan mar walba ka shaqayn aagga dagaal oo ku guuldarraysta inay yeeshaan saamayntii loogu talagalay. Istiraatiijiyadan, oo ay weheliso xoogga saarista xoogga militari, waxay u janjeertay inay dayacdo ammaanka dadka deegaanka. Dadka rayidka ah waxaa loo daayaa naxariista burcadda iyo muqaawamada. Dadka deegaanka ayaa la kulma cadaadis si ay u sahayayaan fallaagada oo ay bixiyaan canshuur iyo inay ku biiraan. Xaalado badan waxay ku tiirsan yihiin fallaagada si ay u ilaaliyaan iska horimaadyada maxalliga ah. Talabaad, canshuurta aan sharciga ahayn. Al-Shabaab waa mashiin dakhli ururin ah oo ku lug leh canshuuraha sharci darrada ah, tahriibinta iyo lacagaha suuqa madow. Tani waxay samayn kartaa sababtoo ah kuwa ka soo horjeeda ma sameeyaan wax ku filan si ay u ilaaliyaan meelaha la qabsaday ama meelaha ay dowladdu maamusho. Al-Shabaab waa ay awoodaan in ay maamulaan oo ay maamulaan xitaa meelaha ay militariga ka taliyaan dowladda iyo howlgalka Midowga Afrika. Dowladda ayaa Muqdisho ka waday olole ka dhan ah canshuuraha Al-Shabaab ilaa iyo 2022. Waxay ku guulaysatay inay yarayso xawaaladaha elektarooniga ah ee kooxda iyadoo si dhow ula socota ganacsatada. Xulafada reer galbeedka ee dowladda ayaa sidoo kale gacan ka geystay sidii ay uga hortagi lahaayeen shabakadaha lacagaha dhaqda ee ka baxsan Soomaaliya, Dubai, Kenya, Uganda, Qubrus iyo Finland. Laakiin xitaa dadaaladaas ayaa lagu guuldarraystay in lagu xisaabtamo dhibaatooyinka amni ee ganacsatada Soomaaliyeed. Arrintan ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ay si bareer ah u bixin doonaan canshuuraha Al-Shabaab. Qoraaga Caaisha Axmed ayaa tibaaxday in lacagtani ay muhiimad gaar ah u leedahay sharaxaadda sida Al-Shabaab ay dib ugu soo laabteen kadib markii ay khasaare badan soo gaadheen sannadihii u dhexeeyay 2006 ilaa 2016. Ta saddexaad, ilaalinta iyo sugista cadaaladda. Sumcadda kooxda ee ilaalinta ayaa la dhisay bilowgii. Iyadoo fasiraadda Al-Shabaab ee shareecada ay ahayd mid adag, waxay soo bandhigtay saadaal iyo xaaladaha qaarkood oo ku wajahan ilaalinta dembiyada cadaaladda. Maxkamadaha Al-Shabaab ayaa soo saaray natiijooyin. Awoodda ay kooxdu u leedahay in ay dhaqangeliso siyaasaddeeda iyo in ay ciqaabto dadka rayidka ah ee ka soo horjeeda waxay ku kordhisay saamaynteeda. Xaaladda afraad, loolanka beelaha. Qabiilku waa qodob muhiim u ah dhinac kasta oo nolosha Soomaaliya ka mid ah. Qabiiladu waxay qeexaan xiriirka ka dhexeeya dadka iyo dhammaan jilayaasha dalka oo ay ku jiraan Al-Shabaab. Qabiilku wuxuu noqday mid aad muhiim ugu ah Al-Shabaab siyaasadda gudaha iyo dibadda. Waxa ay xoogga saartay soo dhoweynta madax dhaqameedka iyo abaabulka shir beeleed qaran.
xaaladaha qaarkood kooxdu waxay isku dayday inay ka hortagto saamaynta dowladda ee beelaha qaarkood iyo inay carqaladeeyaan abaabulka dowladda ee maleeshiyo beeleedyada ka dhanka ah al-shabaab. Gobollada istiraatiijiga ah, tusaale ahaan waddooyinka saadka al-shabaab, odayaasha qabiilku waxay yeelan karaan saamayn weyn. Waxaa dhowaanahan soo baxayay abaabulo qabiil oo ay dowladdu wado si ay ula dagaalamaan al-shabaab. Laakiin ciidamada taageerada qabaa'ilku way jebi karaan sababtoo ah colaadaha qabaa'ilka, taas oo wiiqaysa dagaalka al-shabaab. Colaadaha qabaa'ilku waxay mararka qaarkood ku kicinayaan qabiilada iyo shakhsiyaadka inay la saftaan al-shabaab si ay u badbaadiyaan ammaanka miyiga, oo ay ku jiraan dhexdhexaadinta beelaha, ayaan qayb ka ahayn habka loola dagaalamo al-shabaab. Arrinta shanaad waxay tahay awood darrada ciidanka Soomaaliya. Ciidanka Soomaaliya aad buu u horumaray 10kii sano iyo barkii u dambeeyey. Waxay wadaan duulaanka haddeer socda oo inta badan dagaal kula jira al-shabaabta. Hay-adan sida dhibta yar u jirtay 15kii sannadood ee la soo dhaafay ayaa maanta waxaa howlgal ciidan fulin kara ilaa 19,000 oo askari, iyadoo 8,000 oo ka mida ay yihiin ciidamo guurguura oo ay tababareen saraakiil Maraykan iyo Turki ah. Heerarka tirada cadadkooda ayaa si aad uga hooseeya tiradii ay ahaan jireen. Tababarku wuu fiicnaaday, askartuna waxay helayaan mushahar, inkastoo aanay helin mushaharkooda mar walba. Laakiin weli ciidanku tirooyin la'aan si ay weeraro la aamini karo ugu qaadaan gobollo dhowr ah. Isku mar wade la'aanteeda ayaa sidoo kale xadidaysa awoodda ay u leedahay in ay u beddesho halbeegyada gobol kale. Arrintan ayaa shaki gelinaysa taageerada ciidan ee ciidamada Soomaaliya ay u fidin karaan dowlad goboleedyada dalka ka jira oo ka biyo diidan in al-shabaab oo keliya ay wajahaan. Ciidanka Soomaaliya waxaa haysta dhibaatooyin gudaha ah oo ay sidoo kale wax ka qabtaan. Waxaa ka mid ah musuqmaasuqa iyo shaqaalaysiinta qabiil ku salaysan. Arrinta lixaad ayaa noqonaysa jiritaanka goobo ammaan ah oo ay al-shabaabtu ku dhuuntaan. Gobollada xudunta u ah al-shabaab ee ka taliya Jubbada Hoose iyo Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ayaan weli si dirqi ah loo taaban duulaanka hadda socda. Al-shabaab ayaa muddo 10 sano iyo bar ka badan ku haysay deegaano ka tirsan deegaanadaasi. Qaab dhismeedkeeda maamul ayaa si wanaagsan loo dhisay heer deegaan. Gobolladan ayaa abuuraya dhul dambe oo ay al-shabaab u isticmaali karaan in ay ku nastaan ciidamada, tababaraan ciidan cusub, iyo qorshaynta iyo isku dubaridka howlgallada iyo dacayadaha. Suurtagal ma aha in kooxda laga adkaado iyadoon la qaadin dhulkaas. Ugu dambayn, su'aasha waxay tahay maxaa xiga inay dhacdo mustaqbalka dhow. Qaababkii hore ee weerarada ka dhanka ah al-shabaab ee Soomaaliya waxay muujinayaan daciifnimada labada xeeladood ee ka dhanka ah reer galbeedka iyo kuwa maxalliga ah. Natiijada xigtaa waa ismari waa. Casharadii hore ayaa weli qiimo u leh mustaqbalka, laakiin inta badan waa la dayacay oo siday ahayd loogama faa'iidaysan. Shirkadaha, bunuugta iyo shakhsi walba ee ku lug leh boobka dhaqaalaha shacabka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ee u hoggaansami waaya digniinta, waxaan ka qaadi doonaa tallaabo waafaqsan shareecada islaamka insha allahu tacaala. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ku wargelinaynaa inay muddo 1 usbuuc ah oo ka bilaabanaysa berri oo ay taariikhdu tahay 22 Safar 1446 oo ku beegan 26 Agosto 2024 hantidooda kagala baxaan bangiyada iyo shirkadaha fududaynaya boobka lagu biliqaysanayo hantida bulshada. Waxaan dadweynaha u sheegaynaa in haddii ay muddadaas ugala bixi waayaan hantidooda ay iyagu qaadayaan mas'uuliyadda wixii ka yimaada arrinta iyada ah.